بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حم الشوك ولحى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا عشر من العشر. الله يا مهدن سبحانه وتعالى اللي نؤنتي مسلمين نقدقي أركان الإسلام كنسيي توحيدك ugu horeeyo ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم فالحج. الله سيا مهد سبحانه وتعالى sidoo kale waxaan alla ugu mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala inuu na soo gaarsiiyey 10 maalmood ugu fadliga badan ayaamaha ilaahay uu khalqay subxaana wa tacaala camal la sameeyeen ugu wanaag badan yahay. maanta insha allahu tacaala waxaan ka hadli doonaa ama aan qaaba dhigi doonaa insha allahu tacaala silsila 2 ama 3 xalqo noqon doonta oo ku saabsan xajka iyo axkaamtiisa. xajka sidaad ogsoontihiin walaalayaal waa arkaanta islaamka rukniga shanaad. nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam maalin maalmaha ka mid ah isaga oo saxaabada dhex fadhiyo sida ku sugan cinda alimaami muslim min xadiidi cumar ibn khataab radia allahu tacala anhu ardah ayaa nin baa u yimid aada u dharcad, timihiisa madowgoodana aada u tiro badan yahay oo aada u timi madow, cid halkaa fadhida oo garanaysan aan la arag, calaamo safarna ayna ka muuqanin. kadibna nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam ayuu u yimid, markaasuu nabiga jilbihiisa ayuu jilbaha u saaray, labadiisa calacalood wuxuu saartay bowdooyinkiisa, malagi bowdooyinkiisa ayaa ugu raajixsanaan filayaa. kadibna markaasaa wuxuu yihi muxamedow islaamnimada iga waran. markaasaa wuxuu yihi islaamnimada waa inaad qirta inuusan alla xaq lagu caabudo inuusan jirin alla weyne mooyane, nabi maxamedna uu adeega alla yahay, salaada aada ogta, zakada aada bixisa, soomka bisha ramadaan aada sontid. kadibna wuxuu ku khatimay wa an taxuja albeyta in istatacta ilayhi sabiila, beytka alle inaad uxajisid haddii aada awood u heshid. saas ayuu ninka yihi, ayuu nabigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam. kadibna arrintaa markay dhacday ayaa ninkii arrin lala yaaba ayuu sameeyey oo wuxuu yihi sadaqta. saxaabadii waxay leeyihin marka ood cumar ka mid yahay radia allahu tacala anhu ardaa, waxaan la yaabnay ninkii nabiga ayuu su-aal weydiinaya calayhi salaatu wasalaam, kadibna wuu u rumaynayaa. marka arkaanta islaamka iyo islaamka sidiisaba tiirashiisa waa 5 tiir. xajka ayaa ka mid ah tiirasha islaamka weyaan. sida awadeed ayaa maanta sidaad garanaysaan malaayiin alkhalq ay beytka allah subxana wa tacala aadaan. taarikhda beytka hadii aan dib wax yar ugu laabano waad garanaysaan waid yarfacu ibraahimu alqawaacida min albeyt waismaaciil rabbana taqabal mina inaka anta samiicu caliim. culimadu waxay yidhahdaan waxaa aada ula yaab badan in aada la imaada ninka la yidhaahdo ibraahim khaliilullah iyo canugiisii camal la qabta camalada ugu wanaag badan ood ilaahay faray subxaana wa tacaala, kadibna ay ka naxsan yihiin inaan laga aqbalin rabbana taqabal mina inaka anta samiicu caliim. marka xajka iyo acmaashiisa iyo gudashadiisa iyo dhismihii la dhisay kacbada muxuu ahaa gudashada xajka ka horaba waxa weeyaan in ilaahay lala doono subxaana wa tacaala, ilaahay subxaana wa tacaala looga magan ahdo inay muxuu ahay caddahay ayaa halkaa laga garanaa weyaan. marka insha allahu tacaala waxaan si kooban uga hadli doonaa hadduu alla qadaro dhowr qodob. qodobka koowaad waajibnimada xajka, qodobka labaadna fadliga uu xajka leeyahay. intaas ayaa insha allahu tacala xalqadan koowaad ee maanta ayaan kusoo gabagabayneynaa. xajka adilo aada u badan baa kusoo aroortay waajibnimadiisa oo hadda xadiidka hadda aan sheegayn uu ka mid yahay. sidoo kale waxaa ka mid qowl allahi tabaaraka wa tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila. walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila. allah subxaana wa tacaala wuxuu ku leeyahay dadka, wuxuu ku leeyahay inay beytka usoo qastaan. xajkana waa qasad, marka inay usoo qastaan yaa laga rabaa man istataaca ilayhi sabiila, qofkii xajka u awooda jid uu u maro heli karo. culamadu waxay leeyihin marka sabiilka waa azaadu wاlraaxilatu
وأمن الطريق وزادك قفك إنه صحيح هلي كرو إنه جديد وكراي وهلا سيدا وكلا إنه جدك أمنية هي وجدك مري كرا وقت هذا اللي جوجنا وفيزيه تيجت ديارة يوحي لمتك هويان يوقلا شدي ربك وحده سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله حجك إيه عمرة لما شترى وإله درتين أتاميلا أي ربك الله سبحانه وتعالى آيات كلا ربك وحده سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات حجك وبلا ليقانه أو كوبا ويان قفك مركب فرض أما بواجب حجك ولا بيك اللهم حجا يرهده فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج عن تربقش باشال دمر يرق ودحايو معصيه مرن ان لغا الى حجك اي ربنا نفر سبحانه وتعالى كدبنا wax alla wix khayr holla sameeyo inuu alla ku aqoon badan yahay ayu rabbigan cadeynaya xajka yu ku waajiba marka marraga afwan intaan gaarin ka hore xajka ma sanad kasta la iska rabaa ilaa salaadi waad aragteen maalin kasta la iska doonaya 5 jir ramadaanka waad aragteen sanadkii hal mar baa bil kasta la iska doonaya bil kasta sanad kasta hal bil baa la iska doonaya laakiin xajka ma sidaas ah umaya nabigeena sallallahu alayhi wa sallam sidoo sheegay Abu Hurayra khudba yu istaagay kadibna wuxuu yiri ya ayuha an-nas inna allaha qad farada alaykum al-hajj fahujju wardadaw ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu idinku fariiday al-hajj haji saasoo nabigeena alayhi salatu wasalam nin baa soo booday marka akul aamin ya rasuul allah nabi allah ma sanad kasta nabigu ka aamusay mar labaad ku cili akul aamin ya rasuul allah mar saddexaad ku cili akul aamin ya rasuul allah dadka waqti waxa ku jira dad jecel inay macluumaadka degdeg u helaan ayaa ku jira حريص أيها وحكون دقدقة إنه خير كاس هلا كدبنا نبينا عليه الصلاة والسلام هو إسكأمس سدح جرب كأمسي مركز أبو حيري هدي عليه لها نعم سنة كاس إنك واجب نقول لهيد إلا إن شيء اللي فري أو كدبنا أننا إذا سوقات سيء لازم نقول لها ما أنا أودين أو سنة ضرب حج كرت وما سنة ضرب حج كتاجنا كرته أدب يرتويان مركز نبينا حيري عليه الصلاة والسلام ورياه وحدي ليسان wixii aan adinka faraha aan faraha kala baxa oon idin farin adinkana faraha kala baxa maxaa yeelay ummadii idinka horeeyay waxa baabiyay halaagay oo ay ku halaagsameen su'aal badnidooda iyo khilaaf badnidooda oo waliba nabiyalkooda ay khilaafayeen hadii aan shay idin fara wax alla wixii tabartiina kala imaada fattaqullaha ma istata'tum wa qaacidada sharciga al-ma'murat yutabiha biqadar al-istita'a wixii li isfaro oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ku fara intii aad ka awoodi kartad kala imaanaysa وإذا أمرت وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه هدي لكن شيء اللي سكربه قاعدة الشرع وحاوي لقى فوقات ونلو دواني ساسا يا أصل وين حديث كان إمام مسلم يا صاري حجك رق نقية يدمر نقية لبد جنسي واجب يكون نقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاوي ديسي أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن أبيها وعن أمها وعن جدها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أيا وحاويان النبي أيوي ديسي حيتري نبي الله اللي waxay aragtaa ragi oo jihad u wada bax oo jihaatamo markaas waxay tii rasuul Allah dumarka jihad miya laga doonaya markaas nabiga inuu xiriir sallallahu alayhi wa alihi wasallam ha jihad baa laga doonaya laakiin jihadku waa jihad min nooc aakhar waa jihad kale nعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره حج جهاد انا نحوها دغال لهين ayaa laga doonaya waa xaj umra xadiis kan imaam ahmed imaam ibn majah ayaa soo saaray sana saxiixayn ku soo saareen weeyaan marka nabigeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu cadeeyay marka rag iyo dumarba in xajka laga doona xajka marka qaybta waxaan kaga gudbaynaa waajibnimada xajka idan qof kasto muslima oo mustatiica arkaanta islaamka uma taam noqonaysa isaga oonan xajka aan la imaanin adiladaas hore ayaan cadeynaysa rag iyo dumar ma kala saarno waxaan u gudbaynaa marka qaybta labaad xajka fadaash uu leeyahay xajku u dhib badan yahay nabigeena sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ku shabahay xadiis ku dambeeyay inuu jihaadka muxuu u dhigmo weeyaan ayuu nabigeena muxuu cadeeyay khaasan dumarka xagood oo jihaadkooda uu yahay xajki umrada uu yahay marka xajkaas noocaas ah rabbi oo maxaa laga heli nabi allah maxaa laga heli fawaaishiisa lama koobi karo aad bay u tiro badan yihiin dhowr qodob baan muxuu ku soo koobaya insha Allah ta'ala qodobka koobaad dunuubta ayaa lagu dhaafaa xajka jannada Allah lagu gala subhanahu wa ta'ala Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu warda nabigeena wuxuu ka warnaa alayhi salatu wasalaam inuu yiri al-umratu ila al-umrati كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة عمرة هي عمرة كلين تودا حيسة دم بجاس أيال قلت ترى عمرة هرأي تن هذا محمد هذا سمي أنت تودا حيسة تدم أيال قلت ترى والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حجك إله الله بارني مفلي أو فسقك هي معاصدة هي عن تربقشك
iyo baashaalka rag iyo dumarka udhexeeya laga ilaaliyey iyo muranka laga ilaaliyey abaalmarin kale uu leeyahay ma lahan ilaa janno qofka in lagu siiyo mooyane. saasuu nabigeena cadayna sala allah alay slam xadidkan waa xadid muttafaqa. sidoo kale nabigeena calayhi salatu salaam xadiid isna muttafaqa ayaa wuxuu leeyahay man xaja falam yarfuth walam yafsuq rajaca ka yowma waladat umuhu. qofka xajiyo oo fisqi aanan la imaanin, rafadka aan la imaan, rafadka waxaa la yihahda qofka isagoo muxrim ah oo ixraamka xiran inuu jimaaca iyo galmada iyo muqadimaadka iyo waxyaaba hordhaca baashaalka waxyaaba lamidka uu sameeyo. weliba dee marka laga hadla dabcan xaaraan ma ahna waa kii xalaasha aha, kan xaaraanta isaga halkan sooma galay dabcan waa baab kale, baab zina iyo ciyaadan billah waa baab khabitha alkhubthi weeyaan, kaas kuma jiro meesha. marka qofkii xajiyo oonan rafath la imaanin, faasiqnimo aan la imaanin macaasi, maalintii aada dhashay isagoo la to ayuu dunuubtiis kala to ah ayuu laabta ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayh wali wasalam. xadidkan waa xadid muttafaq caleyh. qofka xaajiga sidoo kale waxyaabaha fadaaishiisa waxaa ka mid ah qofka xaajiga martabo wuxuu gaarayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu kula faantamo, uu ku ammaano malaaigta agtoodii. abi hurayra sidoo kale wuxuu nabigeena ka warina calayhi salaatu wasalaam inuu nabigeena yihi ilaahay weyne subxaanahu watacaala wuxuu ugu faantamaa ahlu carafaat, dadka carafo taagan ahlu samada ugu faantamaa, ahlu carafaat ahlu samada ayuu ugu faantamaa ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayh wasalam. wuxuu leeyay rabbiga subxaanahu watacaala unduruu ilaa cibaadi jaa-uu shuchan gubraa, jaa-uu waa yimaadeen addoommahayga eega bal arka iyaga oo boorowsan, iyagoo basaasan, iyagoo muxuu ahaa dhibaysan, iyagoo daalan ayay halkaa yimaadeen. maxay doonayaan marka, maxay doonayaan weyaan. ilahi subxana watacala xadiidkaas ayuu muxuu ahaa nabigeena siduu cadday ugu faantamaa malaa'igtiisii. xadiidkan waa xadiid saxiix ah, alimaam axmed ibn xibaan iyo xaakim ayaa soo saareen weyaan. sidoo kale fadaaisha xajka waxaa ka mid ah in maalinta carafa malaayiin almalaayiin iyo cadad waxaan lahayn oo allah subxana watala naarta ka xuraynaa. nabigeena wuxuu adayy sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay maa min yowmin akthar min an yuctiqa allahu fiihi cabda min annaar min yowmi carafa. maalin uu ilaahay kaga xurayn badan yahay addoomaha naarta ka xuraynteeda maalinta carafa ilaahay ma sameynin weyn, maba jirta weyaan. maalin uu kaga xurayn badan yahay addoomihiisa ama addoon uu kaga xurayn badan yahay naarta maalinta carafa. maalinta carafa marka cad xisaab la-aan buu rabbigan subxaana watacaala uu addoomihiisa naarta ka xuraya. sidoo kale fadaaisha qodobka u dambeeya waxaa weeyaan qofka bini aadamka ah sida ad ogsoon tihiin markuu adduunkan ku nool yahay laba qodob ayuu ka baqaa, laba shay ayuu ka baqaa. qodob adduunkan shay buu ka baqaa. adduunkan wuxuu ka baqaa in gacantiisa dhulka ay ku dhacdo, inuu faqiiroobo, inuu miskiin noqdo, inuu daymooba, in ummadda uu gacanta uhorsada, in muxuu ahaa uu macno beelo. ila dhaqaalihii iyo maalkii waa nolosha laf dhabarkeeda weyaan. adduunkan waa nicmanta adduunka ilahay usoo diiy subxana watacaala. marka qofku wuxuu ka baqaya inuu faqri ku dhaco. aakhira haddii la gaarana qofku wuxuu ka baqayaa in la cadaabo oo naar la geeyo oo jahanamo lagu tuuro oo siraadku ka sambiraxodo oo muxuu ahaa dhididka qiyaama muxuu ahaa lagu cadaabo oo hakada wamaa ilaa dalika. arrintaana sababteeda maxay tahay? bisababi dunuub. waa dunuub qofku ula imaaday. qofka adduunna wuxuu ka baqaa faqri iyo wixii la xiriiro, aakhirana wuxuu ka baqaa cadaab oo sababta ay u tahay muxuu ahay dunuub. waxyaabaha marka la yaab kale waxaa ka mid ah in xajka uu labadiiba baabi'ina. nabigeena sala allahu alayhi wa aalihi wasalam wuxuu leeyahay taabicuu bayna alxaji walcumra. xadiidkaas imaam axmed iyo tirmidi iyo nasaa-i ay soo saaren waa xadiid xasan ah. wuxuu le nabigena sal slam taabicuu bayna alxaji walcumra, walxajka iyo cumrada isdabageliya oo xajiye oo cumraysta oo xajiye oo cumraysta, saas isu daba dhiga. maxaa yeelay cilada maxay tahay? fainahumaa yanfiyaani alfaqra wadunuub. faqriga iyo dunuubta ayay muxuu ahay afuufaan oy muxuu ahay tirtiraan oy baabi'iyaan ayuu nabigeena cadayna sala allahu alayh wali wasalam. marka xajka fadaaishaas aan la koobi karin ayuu leeyahay. nabigeenana sala allahu alayhi waali wasalam waad garanaysaan xajka wuu xajiyey, weliba maalintuu xajinayey dad aada u badan oo ilaa 100 kun oo xilligaa joogtad garan kartaan ayaa nabigeena la xaji sala allahu alayhi waalihi wasalam. dadkaas marka waa noo imaan doonta insha allahu tacala dariiqada loo xajiyo, anwaacda xajka, mawaaqidiisa, arkaantiisa, waajibaadkiisa, sunantiisa, aadaabtiisa iyo waxa muxuu aha intii la xiriirto insha allahu tacaala way noo imaan doontaa. marka walaalaha muslimiinta marka waxaan ku boorinaya iyo naftaydaba in xajka loo degdego,
xajka in loo degdega maxaa yeelay qofka ma garan karo xilli uu geeriyoona ma garan karo xilli waxyaabaha yaroo shilimaadka ah oo gacmihii dhusuqa yaroo gacmihiis ku jira ay ka bixi doonaan ma garan karo qofkii xilli uu caafimaadka u haysto muxuu waayin doona ma garan karo marka qofka cawaaridta iyo waxyaabaha qofka la soo gudboonaad aad bay u badan yihiin geeridii ayaa taagan xanuunkii ayaa taagan hebel waxaad maqlaysaa waxaa weeyaan stroga ku dhuftay oo muxuu sarir buu saaran yahay ad maqlaysaa hebel shilimaadka waa dheefan aad maqlaysaa hebel xabsiyaa la geliya ad maqlaysaa wamaa ilaa dalika cawaaridta marka lama koobi karo aad bay u tiro badan yihin marka qofka intuu caafimaadka qaba inuu qaniimaysto dhalinyarimada uu ka qaniimaysto isagoo ku camal fala iqtanim khamsan qabla khamsin caafimaadkii shuqli la-aantii waxaa weeyaan da'yaridii iyo kulli hadi umuur muxuu dhaqaalihii aad qofka u haystay ha waxyaabahaas oo dhan qofka intuu haysto inuu muxuu xajka u degdega ku dadaalo ka faa'iidaysto weliba xataa waxaad garanaysaa markaa xajka aad tagto dadka waayeelada oo da-da ah xitaa dhaqaalo kastood haysta markaad waayeel noqoto cibaadada siaad u gudan karta hadda maanta markaad dhalinyaro tahay uma gudan kartid dawaafkii wuxuu u baahan yahay inaad yaro xooganta sacigii waa meel socdheer carafo iyo inta udhexaysa maka waxaa weeye waa masaafo aad u dheer mararka qaar waxaa qos ku qasbanaanaya inuu lugeeyo soon lugeeyo ku qasbanaanaya lakin qof waayeel oo da- suu ku maraya cibaadada marka wahankii xanuunka hayay iyo daalkii iyo rafaadkii iyo muxuu ahaa socod la-aantii haysay miyuu ku mashquulsanaanaya mise allah subxaana watacaala irtibaadkiisi ila xariirkiisi iyo baryadiisi iyo kusoo jeedkiisi iyo acmaashii xaj gudashadiisi iyo allah muxuu ahaa ku-xirnaantiisi ayuu marka utafaruqaya marka qofka intuu da-yar yahay inuu ka faa'iidaysto waa furasta qofka hor yeelo intuu caafimaad qabo inuu ka faa'iidaysto intuu maalka haysto inuu ka faa'iidaysto intuu amniga haysto inuu ka faa'iidaysto intuu muxuu xorriyadda haysto qaar badan baa hadda maanta xorriyad haysata oo laga yaabo xajka ilaahayna in muxuu ku waajibay laakiin berri xorriyadda xataa la seejiyo xorriyad laan ku dhacday ay ku xajiyaan kam wa kam wa kam oo arrimaha ay ku dhacaysaa marka walaalaha muslimiinta guud ahaan waxaan ku boorinaynaa inay xajka u degdegaan weliba sanawaadkan hadda sanadkan la jooga wararkii soo gaaray waxay sheegayaan in xajka uu aad u jabay oo qiimihii lagaga xajin jiray Nairobi iyo Kenya qiimo aad uga hooseeya waxa weeyaan lagu xajiyo marka ha loo degdego xajka ha lagu dadaalo fadaaishaas tiro badan iyo kuwa badan oo sheegin ayuu Allah subhanahu wa ta'ala ka ratibay ilaa waxa ka bariyana subhanahu wa ta'ala bi ismaa'il husna wa sifat ula wa bismi al-azam alladhi idha su'ila bihi ata wa idha du'i bihi ajab an yataqabbala minna kull al-a'mal as-salihah wa an yuwaffiqna li hajjin mabrur wa sa'il mashkur wa dhanbin maghfur wa sallallahu alaihi wa sallam ala abdihi wa rasulihi mustafa